jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaki kasoo kici timid magaalada Muqdisho waxaanan soo gaarnay haatan magaalada Damaam oo berri uu ka furmi doono shir madaxeedka 19aad ee dalalka ku bahoobay Jaamacadda Carabta. ajendayaasha shirka aad u fara badan yihiin waana kuwa khuseeya dalalka ku bahoobay ururka Jaamacadda Carabta ee Soomaaliya qayb ka tahay. shirka oo berri furmi doona waxaa ka horeeyay shirkii golaha wasiirada oo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Caawid uu ka qayb galay kaas oo lagu lafaguray ajendayaasha shirka lagu dhameystiri doono ama looga doodi doono